Aswad al-Canasi markii uu qabsaday maamulkii Yemen uuna sheegtay nebinimo ayuu aaday dhankii Cabdullaahi ibnu Thawb kaas oo loo yaqaano Abi Muslim al-Qawalaani waxa uuna ku yiri ma qaraysaa inaan anigu ahay rasuulkii Ilaahay. Abi Muslim ayaa dhahay ma maqlo waxaad sheegayso. haddana waxa uu ku yiri ma qaraysaa Muxammad inuu yahay rasuulkii Ilaahay. Abi Muslim ayaa dhahay haa. marar badan ayuuna ku soo celiyay sidaas mar walbana waxa uu dhahay hadalkiisii hore oo kale. kadib Aswad al-Canasi ayaa amray in dabka lagu tuuro Abi Muslim. isla markaas Abi Muslim dabkii waxba uma dhibin. kadib Aswad al-Canasi ayaa lagu yiri haddii aadan iska qabanin waxa uu ka fasahaadin doonaa inta ku raacsan. markaas ayuu amray in la musaafuriyo Abi Muslim. isla markaas Abi Muslim waxa uu yimid Madiina iyadoo uu dhintay Nebiga sallallahu calayhi wasallam, Abu Bakarna uu yahay khaliifka muslimiinta. hashiisiina waxa uu ku xirtay albaabkii masaajidka. isaga oo tukanayo ayaa waxaa arkay Cumar bin Khadaab, kadibna waxa uu ku yiri intee ka timid? Abi Muslimna waxa uu dhahay reer Yemen ayaan ahay. Cumar ayaa dhahay muxuu sameeyey ninkii beenaalaha uu dabka ku riday? Abi Muslimna waxa uu dhahay kaasi wuxuu ahaa Cabdullaahi ibnu Thawb. Cumar ayaa dhahay Ilaah baan kugu dhaariye ninkaasi ma adiga? Abi Muslim ayaa dhahay haa. kadib Cumar ayaa laabti geliyey isagoo oynayo, kadibna intuu waday ayuu fadhiisay Abu Bakar agtiisa. wuxuuna dhahay Allah ayaa mahad leh oo aan dilin isagoon tusin qof ka mid ah ummadda Nabi Muhammad sallallahu calayhi wasallam oo lagu sameeyey wixii lagu sameeyey Nabi Ibraahim calayhi salaam oo kale.